walaal Muxamed wuu isdiyaariyay wuxuu isku diyaariyay safar wuxuu isku diyaariyay inuu aado America wuxuu ahaa mid Allah subhanahu wa ta'ala ka fog wuxuu ahaa mid jar xiriirka Rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu ahaa mid Allah subhanahu wa ta'ala ku caasiya diyaaradii way kacday intuu hawada ku jiray wuxuu ka fakariyay markuu Mareykanka tago macaasida iyo xumaanta uu sameyn doono wuxuu ka fakariyay khamrida uu cabi doono wuxuu ka fakariyay kalaabiyada uu aadi doono wuxuu ka fakariyay dumarka uu la tuman doono wuxuu qorsheynayay maalmahaas guduudan soo ku qaadan lahaa hal sekina qalbigiisa iyo niyadiisa kuma ayna soo dhicin allihii awoodan siiyay allihii dhalinyarnimadan siiyay inuu hal sekin gudeed kaga qaadi karo Muhammad America ayuu gaaray guri ayuu kireystay oo dhigtay alaabtiisa iyo dharkiisii kadibna qorshihiisa ayuu bilaaway habeenkii ilaa uu waaga ka bariyo wuxuu ku soo jeedaa macaasi wuxuu ku soo jeedaa mar uu khamri cabayo iyo mar uu macaasi kale uu sameeyo ayuu ku soo jeedaa ilaa waaga uu ka bariyo waaga markuu uu bariyana waa uu seexanayaa ilaa maqribka muslimiinta tirada yar aagiisa ku nool adinka markaas dhagihiisa uu ku maqliyay laakiin qofka loo adimayo oo la leeyahay hayya cala as-salaah hayya cala al-falaah isaga iskuma maleeyaba Muhammad wuxuu dhahay nolosheedii sidaas ay ahayd ilaa habeenka la gaaray talo maxaa dhacay habeenkan kalaab ayaan soo galay khamri ayaan dalbaday koob khamriya ayaan dalbaday kalaabka waxaa joogay gabdho aad iyo aad u qurux badan gabar ayaa meel fog iga soo aragtay way soo aaday dhankayga ayay soo aaday way ii soo dhawaatay zaid ayay igu soo dhawaatay gabadha markaan fiiriyay wuxuu akayd gabar carbeed way ila hadashay si kadisa carabi jajaban ayaan ugu hadashay waxayna igu tiri adigu ma carab baa tahay waxaan ku dhahay anigu carab ayaan ahay iyaduna waxay ugu tiri anigana sidoo kale carab ayaan ahay waxaan haystaa dhalashada Mareykanka halkaan ayaan ku dhashay waxay u weydiisay magaca waxaan ku dhahay Muhammad ayaa la dhahaa waxay tiri magacaas waa necbahay waxa uu ku dhahay sabab maxaad magaca Muhammad ku necb tahay waxay tiri maxaa yeelay anigu waxaan ahay Kristaan anigu Nasaaran ahay Muhammad wuxuu dhahay jirkayga ayaa ka fogaaday maxaa yeelay waxaan dareemay cadaawada uu qabtay islaamka laakiin dareenka aan iyadu u qabo iyo waxyaabaha aan ka rabo ayaa wax kasta igala weynaaday waan u dhoola cadeeyay robada ayaa walaalayaal dulqaatiya codka faga si wanaagsan inuu idin soo gaarin way dhici kartaa laakiin waan dadaali codkayga kor baan u qaadayaa si idin soo gaaro biidhnillah Muhammad wuxuu dhahay walaalayaal waan u dhoola cadeeyay mowduuciina waan bedelay waxaan ku dhahay jaaska ma jeceshahay waxay ugu tiri waan jeclahay wuxuu dhahay kale aan jaasnay saacada ayaan meesha ku jaasaynay kadibna waxaan ku dhahay kaali gurigayga raac waxay ugu tiri maya oo iga diiday si kasta ayaan isku gudayay inaan ku qanciyo hal mar ka badan ayaan bariyay laakiin way diiday inay raacdo habeen labaadkii ayaan sidoo kale weydiistay inay gurigayga raacdo habeen labaadkiina way diiday habeen saddexaadkii ayaan weydiistay way diiday sidoo kale ilaa habeenkan laga gaaray waxaan dhahay kaali raac waxay tiri diyaar waan ku raacayaa anigu waan farxay waxay ugu tiri hal shardi laakiin wata hal shardi ayaan wataa wuxuu dhahay waa maxay shardigaaga waa maxay shuruudaada igu xiraysid jeebkeeda ayay waxay ka soo bixisay siris ku soo ranta calaamada kristanka oo yariis ah waxayna ku tiri waxaan rabaa inaad bahashan qoorta gashatid haddii aad rabtid inaan caawa gurigaaga ku raaco Muhammad wuxuu dhahay markay siliskii soo taagtay dareen la yaab leh ayaan dareemay waa run inaan Allah subhanahu wa ta'ala aan ku caasinayo laakiin muslim ayaan ahay waa run inaan waalidkii caasi ku ahay laakiin muslim ayaan ahay laakiin wax kasta waxay igala weynaaday shahwada iyo rabitaanka aan gabadha rabo siliska ayaan ka qaaday si degdeg ayaan qoorteeda ugu xiray sidii qof la soo xiray ayaan qoorteeda siliga gashtay gabadha waxay ugu tiri wow waad ka qurxoon tahay aad iyo aad baad ugu qurxoon tahay tan waa hadiyad aniga aan ku siiyay ogow ha ii soo dhawaanin ilaa adigoo xiran maahane haddii aan wada kulmayno bahashan muga qoortaha kuugu jirto wuxuu dhahay Muhammad gabadha habeenna qurxoon ayaan la qaatay habeenna macaan ayaa la qaatay shaydaanka ayaa ii macaaninayay shaydaanka ayaa ii qurxinayay kadib habeenada kamid ah ayay diiday inay raacdo waan bariyay si kasta ayaan u bariyay lacag ayaan isku dayay inaan xataa ku qanciyo way iga diiday si fudud si cad ay waxay ugu tiri haddii aad rabtid inaan ku raaco
waa inaad kristan noqotaa, waa inaad diinta kristanka aad soo gashaa. maxamed wuxuu dhahay dareen la yaable ayaan dareemay, erayadaas qalbigayga sidii fallaar ayay ugu dhacday. waxaanan ku dhahay lagama yaabo, suurtagal ma ahan inaan kristan noqdo, maxaa yeelay anigu muslim ayaan ahay. waxay ku tiri anigana suurtagal ma ahan inaan caawo kadib aan adiga ku raaco. wuxuu dhahay maxamed waan barbariyey, wayna iga diiday. habeenkiina sidaas ayaan ku kala tagnay. subaxdii ayaan arkay mise qurux ayaaba usii siyaadayba. way ii soo dhawaatay, aad ayay igu soo dhawaatay. waxayna igu tiri miyaadan jeclayn, miyaadan dareen jecel ku hayn? waxaan ku dhahay haa, soo ma ahan jaceylkaaga waxaan la gubanayo, soo ma ahan jaceylkaaga waxaan saano dhan ugu daciifay, soo ma ahan jaceylkaaga waxaan saano dhan ugu baahanahay, waan ku jeclahay. waxay ku tiri haddaba haddaad jeceshahay kristan noqo, waxba kaama dhibayso, kristan noqo. inta nolosheena ka dhiman oo dhan waa isla qaybsanaynaa. waxaana kuu ballan qaadayaa haddaad kristan noqotid inaan isgursano oo aan lamaano noqono, noloshayda inta ka dhiman kaa dheeraan maayo. maxamed wuxuu dhahay halkan ayuu go-aankayga ku burburay. waxaan hilmaamay inuu magacayga maxamed yahay, uu yahay magacii nabiga sala allahu calayhi wasalam. waxaan hilmaamay inay hooyaday markii aan dugsiga hoose dhiganayay ay ii kicin jirtay salaada subax. waxaan hilmaamay hooyadii markaan saqda dhexe habeenka aan guriga imaado rabbi subxaanahu watacaala iga baryi jirtay inuu isoo hanuuniyo. waxaan hilmaamay nafteydii ayaan hilmaamay. waxaan addoon u noqday hawo iyo shahwo iyo jaceyl aan jirin. waan raacay, timihii ayaana layga xiiray, waxaana noqday kristan. ilin aanan garanayn meesha ay ka socota ayaa iga da-aysay. waxay ahayd markii ugu horreysay aan noloshayda aan kiniisad galo. albaabka markaan ka geliyey ilin ayaa iga daadanaysay. cumri dheer kadib miyaan gaal noqonayaa? abaalkaygu muxuu noqonayaa? naar. away alla ka cabsigii, away xishoodkii, away sharaftii diintayda. waxaasoo dhan way u dhammaatay. guriga ayaan kusoo laabtay sidii qof waalan oo madaxa laga soo xiiray. albaabka guriga ayaan xirtay. nafteedii ayaan weydiiyey maxamed, ma diintii maxamed ayaad ka tagtay? shaydaanka ayaa ii yimaaday. wuxuu igu dhahay maxamed wax kasta way dhammaadeen, gaal ayaad noqotay, gaalnimo ayaad ku dhimanaysaa, naarta ayaadna gelaysaa. maxamed wuxuu dhaha waxaan soo xasuustay awowgeygii addimi jiray, waxaan soo xasuustay musxafkii qolkayga yaallay, waxaan soo xasuustay saaxiibkayga wanaagsana ee markasta igu waanin jiray inaan khaatimo wanaagsan ku dhinto. kor ayaan u qeyliyey. waxaan dhahay maya allahayow hadda nafta ha iga qaadin, maya allahayow hadda nafta ha iga qaadin. islaamka ayaan usoo laabanayaa, qur-aanka ayaan usoo laabanayaa, qaraabo xiriirinta ayaan usoo laabanayaa, baarsimeynta waalidka ayaan usoo laabanayaa. rabbiyow adiga ayaan kuu soo laabanayaa, ee hadda nafta ha iga qaadin. maxamed waa uu baxay, musqusha ayuu galay, siliska qoorta ugu jiray ayuu iska siibay, kadibna waa tuuray. waa uu qubaystay, waa uu isdaahiriyey. maxamed wuxuu dhahay markaas waxaan dareemay in buuro dambiye ah ay dhabarkayga ka degeen. kadibna waxaan dhahay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah. alla maxaa ka macaan ereyadaas. markaas waxaan dareemay farxad aad iyo aad u badan. kadibna waxaan isla markiiba soo raacay diyaaradda ugu horreysay oo waddankayga soo aadaysa. diyaaradda markii waddankayga soo caga dhigatay wixii ugu horreeyay aan maqlo wuxuu ahaa adinka ayuu ahaa. ilin ayaa iga timaaday aanan doonayn. kadibna hooyo ayaan habsiiyey. hooyo lugaheeda ayaan ku hoos ooyey. waxaana dhahay hooyo hadda kadib rabbi subxaanahu watacaala kuma caasinayo. hooyo hadda kadib adiga kuguma caasinayo. hooyo iga raali noqo. kadib hooyo hab ayay isiisay, laabteed ayay gelisay. waxayna igu tiri wiilkaygiyo qalbigaaga khayr u sheeg. allah subxaanahu watacaala waa mid toobada aqbala. qofkii allah subxaanahu watacaala usoo laabta waa u dembi dhaafaa. sidoo kalena allah subxaanahu watacaala waxaaba kaaga sii daran uu kugu farxayaa wiilkaygiyow. kadib maxamed noloshiisa dhan waa isbedeshay. hooyadiis waxay dhahday habeenka haddaan gurigiisa u dhowaado waxaan maqlayaa oohintiisa iyo salaatuleylkiisa. subaxdii haddii aan gurigiisa aan uga tagana waxaan arkayaa asigoo qur-aan akrinaya. subaxyada ka mid ah ayaa hooyadiis waxay tiri waxaan damcay inaan salaada subax u kiciyo. qolkiisa ayaan aaday. albaabkiisa markaan saa u furay waxaaba iisoo caraftay caraf
udgoon aan weliga iisoo carfin. runtii aad iyo aad baan ula yaaba udgoonkaas. kadibna sariirtiisa ayay maamadii taataabatay, mase ma joogo wiilkeedii. indhaheeda daciifka ayay ku fiirisay, mase sariirta meel u dhow ayuu ku sujuudsan yahay oo salli meesha yaal ayuu ku sujuudsan yahay. kadib hooyadii way sugtay, sugitaanka ayaana ku dheeraaday. kadibna way la hadashay, waxay tiri maxamed wiilkeygiiyo madaxiisana waa uu soo qaadi waayey. way la yaabtay, kadibna way taabatay. dhinaca kale ayuu dhacay. hooyadii dareen kale ayaa qabtay, wiilkeygii ma asagoo sujuudsan ayuu dhintay, wax kale ayay la noqotay. hooyo qaylo dhaan ayay samaysay, caruurteeda ayuu iskugu yeertay. walaalkiin maxamed fiiriya ayay tiri. waxay ku dhaheen hooyo abuu maxamed waa uu dhintay. hooyo abuu maxamed isagoo sujuudsan ayuu dhintay. allahu akbar. maxaa ka wanaagsan, maxaa ka qurux badan khaatimadaas wanaagsan walaalayaal. allah subxaanahu watacaala ayuu jeclaaday. allah subxaanahu watacaalana la kulankiisa ayuu jeclaaday. walaalayaal, hadda aan iska ballan qaadno, maanta laga bilaabo inaan jeclaanayno wuxuu allah subxaanahu watacaala uu jecel yahay, inaanan nacayno wuxuu rabbi subxaanahu watacaala uu necib yahay. rabbi subxaanahu watacaala ha idin xifdiyo, rabbi subxaanahu watacaala ha idinku arsaaqo. allah subxaanahu watacaala walaal ha kugu arsaaqo khaatimo wanaagsan. qisadan ayaan jeclaystay inaan kula wadaago, adigana walaalahaaga la sii wadaag oo sii shirgaraa. asalaamu calaykum.